بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا في علمنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر عليه. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan soo dhammaynay suurat alfaatixa oo dhowr qaybood aan u kala qaybinay. qofkii raba in muraajaco ku sameeyay suuraddaasi iyo asraarta, macaanida, duruusta iyo waxyaalaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku qariyey oo xikmada ah, dib ugu noqo adoo aadayo my YouTube channel tafsiirka taxliiliga ee qur-aanka kariimka ah. maanta qur-aanka hoos aan ka wadeynaa, koraan u soconaynaa intuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna gaarsiiyo. waxaana ilaahay weydiisanaynaa inuna waafajiyo, na fahamsiiyo macaanida qur-aanka, asraarta ku jirto, wixii xikama oo ku qarsoon, wixii duruus ah iyo axkaama oo laga qaadanayo. ilaahana waafajiya, allahuma aamiin. kuwii ku dhaqma, dadka kala gaarsiiya, ilaah naga dhigo, allahuma aamiin. maanta waxaan bilaabaynaa horudhaca. waa qaybta koowaad ee horudhaca labada suuradood, suuratu nnaas iyo suuratu lfalaq. labada suuradoodba sida culummada badankooda ay qabaan waxay soo degtay nebiga intuu maka joogay. waxaa la tilmaamaa, riwaayadaha qaarkood ay tilmaamayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam in la sixray. waxay leeyihin waxaa sixray nin la yidhaahdo lubayt ibn alacsam. nin yahuudi ayuu ahaa. halkaas iyadoo kooban waxaa laga faa'iideysanayaa cunsurka yahuudiga ah inay ku jiraan dad badan oo khayrka aan ogolayn. dad yahuudi ahaa oo soo islaamay way jireen waqtiga nebiga uu noolaa calayhi salaatu wasalaam, oo waxa ay barteen ku dhaqmay, maadaama ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa towraa kiisa saxda aha ee waagaas yaalay, ilaahay uu ku xusay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu nebi iyo rasuul u ahaa, uuna noqon doono midka ugu dambeeyo ee lagu soo xiri doono rusushii ambiyada. intii yahuud ahayd oo fahamtay oo ilaahay u waafajiyey fahamkaasi saxda ahaa way soo islaameen. laakiin yahuudi intooda badan waxay ka shaqeeyaan sida qur-aanka uu tilmaamay, ama sida hadda intaan ka faaideysanayno, makri iyo ka hortag, wanaagga iyo khayrka. marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam jabiil ayaa u keenay laba suuradood oo 11 aayadood ka kooban. suuratu nnaas cafwan waxay ka kooban tahay 6 aayadood. suuratu lfalaq waxay ka kooban tahay 5 aayadood. waxay qisadaasi tilmaamaysaa ee ku saabsan ninkaas yahuudiga ah in ceel laga helay oo jabriil markaasi ilaahay uu soo diray, iyadoo daawo ahaan loo soo dhiibay labada suuradood oo 2 suuradood dawo ah. waxaana jabriil uu tilmaamay in nabiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa inuu u diro ceelkaasi oo laga helay 11 gunnadood oo qofka saaxirka ahaa uu ku gunnaday tintii iyo cidiyihii nabiga calayhi salaatu wasalaam, oo markaasi suuraad ugu yeesho maskaxda nabiga calayhi salaatu wasalaam. laakiin culummo waxaa jirta oo dood gelisay qisadan, faafahinteeda ma gelayno, iyagoo ka imaanayo nebiga maadaama macsuum uu yahay, ilaahay uu ka ilaaliyey wax walba oo dhaawacayo maskaxdiisa iyo fahamkiisa iyo garaadkiisa guud ahaan.
calaa kulli xaal qisadaasi waxay leedahay nabiga calayhi salaatu wasalaam markii loo keenay 11 aayadood oo 2 suuradood ilaahay uu u kala qaybiyey suuratu naas iyo suuratu alfalaq markii uu akhriyey ama jibriil markuu ku akhriyey nabiga calayhi salaatu wasalaam wixii sixir ahaa way wada furfurmeen. halkan marka waxaa laga qaadanayaa ilaahay dawo inuu noo soo dhiibay. intaan hore dhaca ah waxaa laga qaadanayaa 1 dadka wax sixra inay yihiin ama sixirka waxa adeegsan inay yihiin dad aan wanaag ogolayn. 2 intaan hore dhaca waxaa kaloo laga qaadanayaa makhluuqaadka ilaahay abuuray ama shucuubta ilaahay abuuray shacab ka mid ah in waqtigii nabiga ilaa maanta inay u badan yihiin kuwa dhaalimiin ah oo xaqa aan ogoleyn aan khayrka ogoleyn. marka waa laga digayaa in la iska ilaaliyo dadkaasi ama kuwa lamid kuwa dhaqamada noocaas oo kale leh in la iska ilaaliyo. suuraddu way ka digaysaa. horudhac ahaan suuradahan maadaama 2 suuradood ay yihiin culummada waxay leeyihiin suuratu naas waxay dawo u tahay qofka gudihiisa waxa ka guuxayo oo dhibayo sida waswaaska oo kale. waana ka hadli doonaa noocyada waswaaska iyo meelaha uu ka kala imaanayo iyo sida suuradda ay u daweysay. waa dawa ilaahi ah. laakiin suuratu alfalaq waxay leeyihiin culummada waxay iyada dawo u tahay waxyaalaha khatarta ah ee muuqda, waxayna ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka wuxuu ka magan galayaa 4 waxyaalood oo midna shar guud ah marka qur-aanka uu dhahayo acuudu billahi min ashaytaani rajiim bismi illaahi araxmaani iraxiim qul acuudu birabbi lfalaq min shari maa khalaq. marka waa shar kasta oo caalamka ka jirto in makhluuq ilaahay uu yahay oo ilaahay uu abuuray. arrintaasi mu'minka waxay gelinaysaa farxad oo ah mar haddii dhib kasta oo jiraba makhluuq ilaahay uu yahay oo ilaahay uu abuuray haddaad ilaahay hoos gasho makhluuqaasi kuma dhibayo marka noocu doona ha ahaado. marka halkan marka shar kastoo ilaahay abuuray ka hadlaysaa faahfaahinteeda oo geli doonaa iyo duruusteeda. marka waa shar guud waay. marka waxaa soo hoosgalaya wax muuqda oo wax dhibayo iyo waxa aan muuqan ee wax dhibayo. suuradaas dawey u tahay. kadib markaas haddana si gooni ah ayaa waxaa loo sheegay sharyaal oo khatar ah oo 3 ah ee suuraddaasi falaq ay ka hadashay. 3 shar ayay faahfaahisay. sharna waxaa waaye markii habeenka mugdigiisa marka la galo waxaa ku qarsoon wax badan oo shar ah. shartaasi marka ilaahay inaad ka magan gashay suuradda laga faa'iidaysanayaan waana arki doonaa. tuugada kusoo dhuumato waxay wax dhibayo dhan kusoo dhuumato waqtiyadaasaa la qorsheeyaa ama wax la maleegaa. waxaasoo dhan mugdiga habeenka kusoo dhuuntaa. xitaa marka rabo in wax la qariyo habeenka mugdiga nebi yacquub ilmihiisii markay qorshihii foosha xumaa ee u maleegeen walaalkooda yuusuf way sugeen ilaa habeen ay ka noqonayso. markaasi kadib ayay u yimaadeen si muuqaalkooda inay been sheegayaan inay run sheegayaan la kala ogaan karo muuqaalkaasay u qariyaan. marka waqti mugdi ay u yimaadeen. marka habeenka shar badan ayaa ku qarsoon. waxaa kaloo suuraddaasi ay daweysay sixirka. sixirka inuu jiro saaxir qof la yiraahdo inuu jiro oo shaqadaas qabto
iyo sixirka inuu raad leeyahay. haddana raadka uu leeyahay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuuna tusinayaa dawo inuu leeyahay. dawadiisana suuraddaasaan ka helaynaa. waxaa kaloo suuraddaas ay kusoo gabagabaysay shar saddexaad. shartaas saddexaad waxaa waaye xaasidka shartiisa. qof waxaa jiro aan ogoleyn waxa ilaahay uu ku siiyey. ma ogolo inaad noolaato, ma ogolo najaax iyo horumar inaad samayso, ma ogolo haddaad xaas tahay xaas fiican inaad noqoto, ma ogolo haddaad nin tahay nin fiican inaad noqoto, ma ogolo haddaad macalin tahay macalin fiican inaad noqoto, ma ogolo haddaad sheekh tahay sheekh fiican inaad noqoto. waxaa waaye waa cudur khatar ah oo qalbiga ku dhaco. cudurkaasi dawadiisa suuraddaasa ka hadashay. waana cudur oo dilaa ah. qofka oo xaasidka ahna wuu dilaa, kan la xasdayna wuu dilaa. marka xasadkaasna wuxuu ka yimaadaa laba nooc waay. marna xasad ahaan oo qofka guud ahaantiisa wuxuuba xasdayaa qof kale. nooca labaad waxaa waaye qofka indhaha, waa xasad khaas ah waay. indhuhu wax ku xasdayaa. marka cuyuun waxaa la yidhaahdaa maaragtay alcayn. alcaynu xaq uu dhahay rasuulka alai slam axaadiista ka mid ah. isha in qof uu kugu xasdo waa xaq. wax jiro waa micnaha, wax jiro waa in layska ilaaliyo u baahan. marka iyadana waa ka hadlaynaa hadduu ilaah yiraahdo. suuradda laakiin suuratu nnaas waxay ka hadashay waxa la yidhaahdo gudahaaga waxa ka guuxayo ama wax ku dhibayo oo gudahaaga ku jiro. shaki badan, waswaas badan, iyo qaabka loo zuuliyo iyo meelaha uu ka kala imaanayo. waxay kaloo suuraddaasi ka hadlaysaa iyadana 3 magac oo ilaahay magaciisa ka mid ah: alrab, almalik, alilaah, oo marna sifa ah in raad ay ku yeelanayaan qofka insaanka ah ee rumaysan magacyadaas ilaahay. marka isu diyaari suuradda iyo faahfaahinteeda. marka waxaan ku bilaabaynaa insha allah suuratu nnaas iyo wixii macaani oo ku jiraan sheegaynaa, wixii asraar ku qarsoonaan sheegaynaa, waxaan sheegaynaa wixii axkaam meesha ka soo baxayo, wixii xikam ahaan sheegaynaa, iyo sida loo dhaqangeliyo oo aada suuraddaasi isticmaalkeeda ay ku ilaalinayso habeen walba hadduu ilaah yiraahdo. waxaana soo aroortay in habeen walba intaadan seexan suuradahaasi mid walba 3 jeer inaad akhriso, gacantaada aad ku afuufto, korkana aad wada mariso. marka waxaan baran doonaa hadduu ilaah yiraahdo sida suuradahaas ay ku difaacayaan, sidii nabiga calayhi salaatu wasalaam ay u ilaaliyeen, ayaa qof walba oo mu'mina oo rumaysan qur'aanka iyo suuradahaas ay u ilaalin doonaan. aquulu qawlii hada wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.